habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin BBC-da ayaa aragtay ilaa 1,000 tahriibayaal Afrikaan ah oo lagu hayo Liibiya hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegaysa in dadkaasi goobo aad u xun lagu hayo meel ay ku badbaadaan ayay u socdaalayaan qaramada midoobay waxay sheegaysaa in ka badan 270,000 oo muslimiinta Rohingya ah ay u qaxeen Bangladesh labadii toddobaad ee ugu dambeeyay haddii aadan ka bixi karin in mar walba ilmo sii weynaanaya aad dhar u iibiso bal ka waran dhar ilmaha marka uu weynaadaba la sii weynaanaya barnaamijka Click ayaad uga bogan doontaan BBC-da waxaa la siiyay fursad ay ku arkaan 1,000 muhaajiriin Afrikaan oo ku xiran waddanka Liibiya hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn waxa ay sheegtay in dadkaasi soo galootiga iyo qaxootiga la soo qabtay iyagoo doonaya in ay xeebta doon ka raacaan badda Mediterranean-ka balse midowga Yurub waxa ay weli ku dhiirigelinayaan Liibiya inay joojiso soo galootigaasi ka qaxaya xeebtooda waxaana ay rabaan in ilaalada xeebaha waddankaasi ay ka hortagaan dhibaatadan Yaasmiin Axmed ayaa ka waramaysa waa muhaajiriinta Yurub ay rabin qol cariiri badan ayay kuleelkan ku xayirin yihiin waxayna joogaan Liibiya wadan nidaam darahaysa oo iyagana rabin muhaajiriinta intooda badan waxay ka qaxaan qaaradda Afrika qaar ka mid kuwa halkan jooga waxaa lagu joojiyay badda hadda waxaa lagu hayaa Trig al-Sika xarunta ugu weyn ee lagu hayo soo galootiga ee magaalada Tripoli waxaan rabaa inaan dalkayga hooyo ku noqdo wax kaloo rabaa ma jirto cadaabtii ifka ayaanu cagahayaga ku soo doonanay BBC-da waxaa la siiyey fursad ay la hadlaan dadka halkan ku sugan wiilka oo BBC-da hagaya waa wiil 18 jir ah oo ka soo qaxay Suudaanta Koonfureed balse muddo 3 sano ah wuxuu joogay London halka aabihiisu ka shaqaynayay Ingiriiska wuxuu lacag siiyey kuwa bini'aadamka ganacsada si uu dib ugu noqdo London laakiin koox hubaysan ayaa ka afduubeen Liibiya markaan soo boodaynay waxaa joogay nin oday ah waa la toogtay dhiiggiisa ayaa gaaray shaarkayga oo dhan waxaan u maleeyay in lay toogtay aad ayaan u cabsaday waana orday ragga halkan lagu hayo waxaa iibinaysa Maleeshiya qaar ka midna waa la adoonsanayaa Emmanuel wuxuu gacan u galay koox hubaysan oo xiriir la lahaa kuwa dadka tahriibiya laakiin wuxuu yiri in xanuunka ugu weyn ay ahayd wixii ay ku sameeyeen 2 gabdho yar waxay galeen qolka labaad waxayna kufsadeen gabdhihii waxba kama aanan qaban karin sababtoo ma aanan haysan waxaan isku difaacno banaanka waxaa fadhiya dadka cusub oo hadda yimaadeen waxaana soo qabtay ilaalada xeebaha waxaana ka muuqata niyad jab rinji cagaar ayaa timaha loo mariyay kuwa bini'aadamka ganacsada ayaa calaamadan ku reebay markii lacagta lagu lahaa ay bixiyeen dadku waxa calaamad loo yeelay sida lo'da muslimiinta Rohingya ee ka qaxaya waddanka Myanmar ayaa kor u dhaafay in ka badan 250,000 oo qof hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in qiyaastooda ay ku salaysay kadib qiimeyn ay ku sameeyeen goobo aan markii hore lagu darin xisaabta BBC-da ayaa booqatay xero qaxooti oo ku taala Sohdinta Usmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya kabala'aan ayay ku yimaadeen waxayna kaga soo lumeen dhoobadii safarka dheeraa ay halkan ku yimaadeen waa qax tiro badan ay ku soo galeen muslimiinta Rohingya oo Bangladesh kaga soo qulqulaya dhinaca Myanmar waxa ay sheegayaan in militariga iyo Buddhista ay burburinayaan tuulooyinkooda kadib markii xagjiriin Rohingya ah ay saldhigyo booliis ah weerareen 2 toddobaad ka hor waxaa hadda lagu qiyaasayaa in 164,000 ay hadda xadka ka soo gudbeen balse lama xaqiijin karo tirada saxda ah ee timid mas'uul qaramada midoobe ka tirsan ayaa loo sheegay in xeradan cusub ay ku jiraan ku dhowaad 15,000 waxayna BBC-da u sheegtay inaysan sheegi karin tirada qaxootiga halkan ku jira waxaana laga yaabaa in tiro badan oo 100,000 ah ay yihiin ruux kasta cunto iyo biyo ayuu doonayaa wuxuuna qof kasta hayaa sheeko naxdin leh saddexdayda wiil waa la qaatay ma garanayo meeshay jiraan waxaan cuno ma haysto fadlan wax ii siiya
sawirro naxdin leh ayaa sidoo kale ka jira. Tuulooyinka ayaa gubanaya iyadoo lagu eedeynayo in ciidamada Myanmar ay dab qabadsiinayaan. dad badan ayaa dhintay. Halkani waa tuuladii aanu deganayn. markii hore guryaha ayay dab qabadsiiyeen, markii dambana helikobtaro ayay soo fuuleen oo dabeetana dusha ayay naga soo toogteen. Mr. Shafiiq wuxuu soo arkay goobo naxdin leh. Meydad ayaa webiga sabaynaya. Qaxootiga Rohingya iyagoo badbaado doon ah ayay biyaha ku qarraqmeen. kadib dhibaatada u dambaysa ayaa ah xirkaha mudacyada leh ee xadka Bangladesh ku xiran. BBC-da ma xaqiijin karto muuqaaladan midkoodna, balse sheekooyinka ay qaxootiga sheegayaan ayaa isku wada mid ah. welina way imaanayaan. guryahoodii ayaa laga soo saaray, waxayna tani tahay musiibo bini'aadan oo kordhaysa. faahfaahin dheeraada oo ku saabsan warbixinadeena telefishinka iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa boggayaga bbcsomali.com adiga oo si fudud uga geli kara moobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta. dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 8 ayaa gilgilay Mexico, kaasi oo ah kii ugu xooganaa ee ku dhufta waddankaasi muddo 32 sano. waxa uu ku dhuftay xeebta Pacifica isagoo oo gilgilay dhismooyinka magaalada caasimadda ee Mexico oo 100 kilomitir u jirtay halkaasi. waxa la sheegay in dhulgariirka uu socday 1 daqiiqo. dadka ayaa jidadka isugu soo baxay iyagoo oo xiran dharkooda jiifka. meelaha qaar waxa ka go'ay korontadii. in ka badan nus milyan qof ayaa lagu amray in guryahooda ay isaga baxaan gobolka Florida ee waddanka Mareykanka ka hor inta aanay ku dhufan duufaanta Irma oo ku soo foole waddankaasi habeenka Axadda. waxaa dhacday in baabuur badan ay buuxiyeen jidadka waaweyn iyadoo warbaahinta gudahana ay ku warantay in safaf dhaadheer loo galay biyaha caagadaha ku jira iyo shidaalkaba. iskuulada Florida ayaa dhammaan la xiray. gudoomiyaha gobolkaasi Rick Scottna waxa uu ka digay in duufaantaasi ay burbur weyn u geysan doonto gobolkaasi Florida. militariga Mareykanka ayaa sheegay in weerar cirka ah oo ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya 1 qof ay kaga dileen. war ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in weerarku shalay galab uu ka dhacay meel u dhow magaalada Baraawe oo koonfur galbeed kaga beegan caasimadda Muqdisho. waa weerarkii labaad ee toddobaadkan, taasi oo tirada Al-Shabaab ee la dilay ka dhigaysa 4 qof. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu dhexdhexaadin doono muranka ka dhaxeeya dowladda Qatar iyo wadamada Carabta ee dariska la ah kadib markii Sacuudiga iyo xulafadiisa ay xiriirka u jiraan bishii June, iyagoo sheegay in Qatar kooxaha argagixisada ay taageerto inkastoo oo ay beeniyeen. saas oo ay tahayna Donald Trump waxa uu sheegay in arrintaasi si dhaqso ah xal loogu heli lahaa haddii uu mar hore soo dhexgeli lahaa. marka jacayl laga hadlayo inta badan waxaa muhiim u ah nabadda. magaalada Muqdisho oo ka soo kabanaysa dagaaladii sokeeye ee muddada dheer ka holcayay waxaa dhawaan laga furay dukaan lagu iibiyo hadiyadaha oo kaliya. waxaa muddaba uu dukaankaasi soo jiidanayay waa muddooyinkii ugu dambeeyay dhalinyarada doonaya in ay kasbadaan qalbiyada lamaanayaashooda iyo weliba dadka kale ee ku weyn. Cali Nuur Saraad ayaa warbixintan nooga soo diray. halkan waxaa ka dukaamaysta dadka doonaya in ay hadiyada u iibiyaan dadka ay jecel yihiin iyo asxaabtooda dhiganaya munaasabadaha kala duwan. dukaankan oo macaamiil badan ay u soo adeeg doontaan ayaa si gaar ah waxa uu u soo jiitay dhallinyarada, gaar ahaan lamaanayaasha cusub. qofka aad rabto maanta inaad dareenka la wadaagto wuxuu kuu cabiri karaa inaad la wadaagto dareenka qofka inaad hadiyad u geyso, haddii ay noqoto mid jacayl oo qof jacayl ku saleysan, hadiyad jacayl ku saleysan, hadday noqoto hadiyad ku saleysan inaad qofka u hambaliyeyso ama jaamacad oo dhammaystay ama jaamacad qalinka oo qalin bedelasho ku jiro. wallaahi kuwa ugu leeyahay qofka waxaa dareemi kara muhiimadda ah qofka hadiyadda maxaa la yidhahda loo geeyey. waxaan u geeyey koob sawirkiisa ugu dhagan yahay, anigana dhinaca uga dhaganahay. aan ugu talagala markuu xafiis joogo ama markuu guri joogo, labadaba inuu wax ku caabo. isku hibaynta hadiyadaha ayaa ah dhaqan ku cusub jiilkan oo ku hana qaaday muddadii burburka Soomaaliya. waxa ayna u muuqataa in ay si dhaqsi ah ula qabsanayaan. macaamiisha ugu badan ee dukaankan waa dhalinyaro, wiilal iyo gabdho isugu jira. waxa ugu badan ee halkan lagu iibiyana waa ubaxa, astaan nabadeed iyo mid kalgacal. sidaa darteed ayay dadku ugu yeereen dukaankan
dukaanka dadka isjecel. dadka hadiyadaha halkan ka iibsada waxa ay ka helaan talooyin ku aadan nuuca hadiyadaha ay qaadanayaan si ay u waafajiyaan hadba waxa ay munaasabadu tahay. qof kasta dhalinyarada Soomaaliya Muqdisho joogo waxa muxuu sheegay waxa kaliya uu yaqaan waxa markii qora dhaco shanqarta xabada sadexda uu yaqaana aka dhaco ku leeyahay biskoolada dhacdo ku leeyahay laakiin se ma yaqaano ubax qof gacalisadiisa ah ama hadiyad qof macalinkiisa ah nooca u geelaha ma garanayo. waxaan u aragnaa marka fursad inaan dadkii dhalinyarada ahay ee nabadii iyo xilligii baraaraha Soomaaliya laga sheekeynay aan soo joogin inaan isla fiirno. muqdisho waxa ay ka soo kabanaysaa dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay waxaana ku soo kordhaya ganacsiyo cusub oo aan horay looga baran kuwaasi oo ah adeegyo ay bulshadu u baahan tahay. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho. waa tahay markana wararka ciyaaraha haddaanu eegno wakiilada Diego Costa ayaa wada hadal la yeeshay kooxda Fenerbahce oo ah in ciyaaryahankaasi deyn ay kaga qaataan Chelsea. ciyaaryahankan caalamiga ayaa ku guuldareystay inuu ka tago kooxda horyaalka Ingiriiska hogaaminaysay ka hor maalintii ay ku ekeyd kala qaadashada ciyaaryahanada Yurub. weli waxa uu haystaa fursad Turkiga ka furan ilaa Jimcaha. tababaraha Chelsea balse Antonio Conte ayaa u sheegay Antonio Conte in Costa uu raadsado koox kale. dhinaca ciyaaraha tenniskana Mareykanka New York waxa ka furan tartanka US Open. Sloane Stephens ayaa 3 gacmood ku garaacday Venus Williams iyadoo oo u soo baxday ciyaarta kama dambaysta ah oo isaga hor imanayaan Madison Keys. waxayna ay 2 gacmood uga adkaatay Coco van der Wege. ciyaarta finalka waxay dhacaysaa Sabtida. markana waa qaybtii farsamada ama tiknoolajiyada ee Click. waxa soo jeedinaysa Cusub Cilmi. mashiinkan tanaga kalluunka nadiifiya intanuun ma sameeyee isla markaana wuxuu kugu xidhaa kalluunkaad ugu jeceshahay isagoo kuu sii nadiifinaya tanaga intaad ka maqan tahay. mashiinkan MOAI la idhaa wuxuu leeyahay nidaam hagaya intuu hawsha wado. fikraddanna durtaba caan ayay noqotay, dad badanna way soo jiidatay iyadoo 2 bilood u harsan tahay intii la keenayay. qalin cajiiba oo 10 ilbiriqsi ku soo saari kara cudurka kansarka. waa qalabkii ugu dambeeyay ee ay soo saareen cilmi baarayaasha jaamacadda Texas. qalinkani wuxuu ka faa'iideystaa dheefshiidka unugyada kansarka isagoo ka ururinaya kimikada unugyada marka biyo lagu dhibciyo. faraha kimikada laga qaado ayaa caawiya dhakhaatiirta in ay ku gartaan kansarka. baaritaanka laga qaaday teknoolojigana wuxuu xaqiijiyay inuu 96% saxsan yahay. dhar la koraya carruurtaada ayaa sanadkan qaaday abaalmarinta James Dyson ee wax soo saaridda, balse dharkani waxay weli marayaan marxaladii tijaabinta. laakiin naqshadeeyaha Ryan Yasin oo ku qalin jabiyay injineernimo ayaa sheegay in ay dharku leekaan karaan carruurta 6 bilood jirta ilaa iyo 3 jirkooda. waxa kaloo soo jiidatay dadka waaweyn, siiba ahaan dumarka uurka leh. mashruucay soo dejisay BBC-da qaybta waxbaadhista ayaa imika ku siinaysa fursad aad si cusub ugu isticmaashid sameecadahaaga. mashruuca Inspection Chamber oo ah riwaayado sayniska ah oo aad ku dhageysan kartid adoo jooga gurigaaga ayaa la yidhi weli sheekooyinka ku jira faseex ma aha, laakiin kuwii soo saaray ayaa sheegay in ay ku jiri doonaan kaftan qosol badan. ugu dambeyntiina waxaan idinkaga tagaynaa cayayaan aan horey loo aqoon iyo geedo hor leh oo laga helay salka hoose ee Antarctica. saynis yahano ka tirsan jaamacadda qaranka Australia ayaana baaritaankaasi sameeyay, waxaana meel aad cimiladu u kulushahay ay tahay meeshaasi oo volcano uu ka jiro. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyayba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogayaga bbcsomali.com. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeennii caawa. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. mar kale waxaa noo ballanaa isniinta inta ka horeysa dhammaantiinba habeen wanaagsan.